munaasabad lagu xusayay 8 Maarso ee loo aqoonsan yahay inay tahay maalinta haweenka adduunka ayaa habeenkii xalay lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadda badda ee magaalada Berbera University. munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka Saaxil xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka taliyaha dhinaca arrimaha haweenka ee madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Somaliland weynaha ku dhaqan gobolka Saaxil oo ugu horeeyaan ururada haweenku ayaa ugu horeyn hadal warkaasi ka soo jeeday gudoomiyaha gobolka Saaxil Ali Maxamed Cilmi waxa uu ka warramay munaasabadaasi iyo ahmiyadda ay u leedahay haweenka sidoo kalena haweenka u soo jeediyay in loo baahan yahay inay la yimaadaan midnimo iyo iskaashi si ay u daboolaan halinta ay kaga jiraan horumarka waddanka. inuu noqdo gobolka Saaxil kuwa bulshada in qofku horumar ay ilaado waa gurigii hooyooyin oo marka la soo horumaro waa xusin mudan iyadoo xafladooda ay ku qabsan doonaan iyadoo ay xafiisyo ka dhigan doonaan iyagoo wixii ay danahooda ka tashan doonaan ayaa qabaa inuu qayb libaax ka qaadan doono. sidoo kalena halkaasi hadallo waxaa ka soo jeediyay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oo iyaguna ka warramay munaasabadaasi iyo qiimaha ay u leedahay haweenka. sidoo kale hadalkaasi ay ka soo jeedisay la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca arrimaha haweenka Amaal Xaaji Miisaan ayaa iyaduna ay ka wartay munaasabadaasi iyo qiimaha ay leedahay iyo sida iyada micno gaar ah ugu sameynayso iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ay munaasabad noocan oo kale ay kala soo qayb gasho haweenka ku dhaqan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. sidoo kale gudoomiyaha ururka Norway gobolka Saaxil Saada Jaamac Cabdi ayaa iyana hadalkaasi ay ka soo jeedisay waxa ay ka warantay haweenka iyo kaalinta ay kaga jiraan bulshada iyo sida loogu baahan yahay mar walba in ay la yimaadaan wax wada qabsi iyo iskarabsi. waxa caawinaya farxad gaaraya in aan gobolka Saaxil magaalada madaxdiisa Berbera aan kala qayb qaato haweenka Soomaaliland oo xusaya xuska maalinta 8 Maars in aan kala qayb qaato waxa farxad gaaraya in aan joogo maanta hooyadii Soomaaliland waa habeen ugu weyn waayo waa habeenkeenii hooyo lama soo koobi karo waayo waxa qaba hooyo. sidoo kale halkaasi hadallo waxaa ka soo jeediyay dad kala duwan oo isugu jira marti sharaf iyo xubno ka socda ururada haweenka oo dhammaantoodba ka warramay munaasabadaasi iyo qiimaha ay haweenka u leedahay isla markaasina haweenka u rajeeyay inay munaasabadeeda ku gaadhaan horumar iyo barwaaqo. Cabdisalaan Xariir TV-ga qaranka Berbera.